assalaamu calaykum isku soo noqod wanaagsan waa qaybtii labaad ee sheekadii waxaa tahay adduunkayga intaanan sheekada gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid sidoo kale aad janaalkeenna xinjiraha jacaylka sabscribe saartid si aan u gaadhno 10,000 mahadsanid maamulaha madbacadda bugaagta markii laga yimaado uduga kutubta waxaa jira udug kale oo dhex qaadaya goobta bandhiga bugaagta cimrigeenna waxaan ku dhammaysannay eedaynta qof maqan ilaa aan isilowsiinay kadib waxaa maalin un imaan udug cadarka kadib qiso walba halkeedii hore ayay dib ugu soo bilaabmaysaa sidaa darteed cadarku waa aalad wakhtiga inagu dhex safrinaya cadarku wuxuu inagu celinayaa wakhti lasoo dhaafay wakhtigaasi cimrigii ka dambeeyey badda ayaa liqday oo maanshood ayuu ku dhammaaday aynu nafteenna ku qancino in wax tegay aysan tiigsimaad lahayn mar kasta oo aan dhanka cadarka aado garaadkaygu wuxuu leeyahay dib u laabo doqonyahow garaadku ma tixgelinayo raadinta gabadha qalbigaygu wuxuu i farayaa inaan gabadha raadiyo qalbigu waxa uu leeyahay fur halxiraarahan weliba wuxuu igu qaylinayaa sidii nin dibi buursan xanaaqsan u eryanayo wuxuu qalbigaygu mar kasta i farayaa inaan gabadhii baaro kana salgaaro waxaa gudahayga ka dhacaya hardan adag oo u dhexeeya qalbiga iyo garaadka markii dambe intaan istaagay ayaan labadoodiiba ku xanaaqay kuna qayliyey anigoo ku leh wakhti la doodo oo laysqabsado ma joogno badanka waxaannu raacnaa arrimaha qalbiga hadhowna waynu ka shallaynaa kadibna markii aynu dhagaha ka furaysannay dhambaallada garaadka baadhitaankii gabadha aan ku raadinayay ayaan sii watay sida xaqiiqda ah garaadka badan ma fiicna qofka garaadka badan fursado badan ayuu khasaarinayaa intuu iimo iyo ceebo u sameeyo dhanka kale ma wanaagsanaa inuu qofku daba kableeyo qalbigiisa si uusan ugu dhicin waxyaabo badan oo aan macno lahayn sida hagaagsan waa inaynu dib u eegis ku samayno habka nolosheenna garaadkeenna iyo qalbigeenna waa inaynu isku dheelitirnaana waa inaynu mararka qaar waali caqliyaysan waalanno oo wax walba haddii aynu garaadka ku wajahno waxyaabo badan ayaa burburaya noloshu sidaas ayay ku sugmaysaa kuna xasilaysaa kadib kolkii ay dhammaatay 45 daqiiqo waxaan hubsaday inaanan weli gabadhii gacan ku haynin dib ayaan u soo noqday anigoo noogsan lana mid ah sida halgamaa ciidankiisii asxaabtiisii iyo ehelkiisii la gumaaday oo keligii ka nool markii aan soo laabtay gabadhii yarayd waan ka waayay meeshii aan ku amray inay joogto wayna ka tagtay wax walba oo ku saabsanaa bandhigga bugaagta si quman oo dabiici ah ayuu ku socdaa qoraayadu waxay ku sheekaysanayaan finjaanka qaxwaha ah dadka bandhiga ka soo qayb galayna waxay kolba eegayaan riwaayadaha kala duwan ee bandhigga la keenay kuwa buugta iibsada bahda wax akhrisa been iyo brobagando ayay ku hirqaanayaan si ay buugta suuqgeyn ugu sameeyaan ninka iska leh madbacadda ugu tunka weyn madbacadaha bandhigga ka soo qayb galay kursi ayuu ku fadhiyaa fartiisa ayuu kolba candhuuf marinaya oo uu ku tirinayaa lacagta kala jaadka ah ee buugta laga siiyey waxaan baaray halkii aan dhigay warqadihii ay gabadhii yarayd isiisay bugaag meesha taallay ayaan sare u qaaday sanduuq meesha yaallay hoostiisa ayaan ka eegay qofkii buugtan iyo sanduuqanba lahaa ayaan weydiiyey anigoo isleh waxaa laga yaabaa in qabanqaabiyaashu bandhigu ay meel dhigaan waxay sheegeen inaysan waxba arag gabadhii yarayd ayaan weydiiyey waxayna ii sheegeen inaysan xitaa gabadh yari arag xaaladdan ku jiro waxay ila eg tahay sidii qof riyo qarow ah ay ka gooday kadib markii uu ku kacay qaylo meel baas ka timid nolosha waxaynu ka baranaynaa in qofna uusan haysan wakhti uu ku dhagaysto murugooyinkeenna gaarka ah dhanka kale waxaannu barannay inaynu qarsanno xanuunada qalbiyadeenna xitaa haddii ay qof isku dayo inuu ina dhegaysto haddii uu qof ina waraysan maago inta dhoola caddayno ayaan si been ah u dhahnaa
khayr iyo barako weeye. Mararka qaar waxaa jira dhacdooyin aan la qarin karin waqti dheer. Dhacdooyinkaasi waxay la mid yihiin nukliyeerka wax kumaada, waxaana waajib ah in cid kale aynu la wadaagno, haddii kale qalbigeenna ayuu ka dhex qarxayaa. Waqtigaas waxaan u baahnaa saaxiib wanaagsan oo aan wax walba u sheegto. Weliba waxaan u baahnahay saaxiib aan ogahay markaan wax walba u sheego inuu wax walba halkaa ku ilaawayo. Haddaba saaxiibka wanaagsani waa mid markaad wax walba u sheegto isla meesha ku ilaawaya oo aan hadhow adiga ku adeegsanaynin. Saaxiibkaasi waa midkaas xasuusato isla markaana aad ku dhacdo tabin. Waa qofka horey kaa fahmay adiga oo aan ku dheeraan sharax iyo fahansiin. Waa qofka aad ka maqnaanayso, haddana markaad ku soo laabato kuma canaananayo, wuxuu ogsoon yahay inaadan marar qaar kelinimo u baahan tahay. Waa qofka aad ku canaanan karto dembi uusan gelin ee aan haddana wax cara iyo cuqdad toona kuu qaadeen. Waa kaa saaxiibka wanaagsan ee lagama maarmaanka ahi. Anigu maalintan gabadhaas raadinayay wax saaxiib ah ma lahayn, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan bannaanka bandhigta buugaagta u baxo si aan hawo nadiif ah oo bilaa rabshaha u soo qaato. Sidaa markaan uga soo fogaaday bandhiggii ayaan maqlay cod wadnahay gooyay. "Xageed ku dhuumatay?" waxaa ii kaa weydiiyey qaar ka mid ah akhristayaashaada. Waa maamulihii madbacadda. Dhoola caddayn caro ku dheehan tahay ayaa ka muuqata. Waanan garanayaa sababta uu u xanaaqsan yahay. Ma ahan inuu bahda akhriska u damqanayo, waa inuu rabo lacagta jeebkooda ku jirta. Mar kasta waxa uu ku fakarayaa sidii uu lacag badan uga heli lahaa. Dadka wax akhrista wax walba lacagta ayaa uga muhiimsan. Hadallo kulkulul ayaan dhihi lahaa haddii aanan ku xushmaynayn da'da uu iga wen yahay. Deetana waan ka aamusay. Hagaag, runtii been baan sheegayaa. Sida xaqiiqda ah waxaan odayga u ixtiraamayo ma ahan inuu iga da'wan yahay, ee waxaan xasuustay inuu igala dhexeeyay heshiis. Maamulaha madbacadda waxaan la galay heshiis gaaraya 10 sano oo ku saabsan inuu daabaco dhammaan buugaagteeda oo idin. Inta heshiiskaas socdo, qoraaga xaq uma lahan in cid kale daabacado ama u faafiso buugaagtiisa. Waxaan la yaabanahay shaydaankee ayaa igu qanciyay inaan odaygaas heshiis la galo. Deetana waxaan ka cudur daartay maqnaanshiyahayga. Kadib waxaan si degdeg ah ugu dhahay hadda ayaan soo xaroonayaa. Hawo yar ayaan qaadanayay. Kadib waxaan dhammaystirtay saxiixa buugaagtii. Madaxa ayuu ruuxay isagoo iska dhigaya inuu ku qancay hadalkayga, kana xun inaan bannaanka u soo baxay. Xaaladda aniga iyo maamulaha waxaad mooddaa sida nin taraafiko ah oo u dhoola caddaynaya darawal mooge ah oo ku xadgudbay sharciga waddooyinka, kadibna askarigu rabo inuusan u qaban khaladkiisa. Candhuuftayda ayaan dib u liqay intaanan hortiisa ka dhaqaaqin. Maamulihii jeebadiisa ayuu gacanta geliyey isagoo leh, "Oh, habixin, waxaan ku sigtay inaan hilmaamo. Wax adigoo keliya lagugu talagalay ayaa jira." Sidaasi waxaa yidhi maamulaha oo dhowr tallaabo iga sii fogaanaya, sida inuu wax uun meel ka soo qabsanayo. Xilligaasi waxaa niyadda iska dhahayay ii noqon kartaa gabadhan dhambaalada soo dhiibtay. Haa, macquul ma tahay inay tahay gabadhii magaceedu u dambeeyey xarafka T. Lacagtii 10 riyaal ahayd. Maamulihii ayaa igu soo laabtay asagoo gacanta ku sida dhambaaladii walwalka igu hayay. Waxauna yidhi, gabadhan yar ayaa ii timid intaad maqnayd, waxayna iga dalbatay inaan ku siiyo warqadahan. Warqadihii waa uu i siiyey. Kadibna si uu u soo bixiyo wax kale ayuu sarwaalka jeemiska ah gacanta u diray. Weligay ma arag isagoo sarwaal kale wata. Maamulihii lacnad ha kugu dhacdee, lacagtan xaggee ayay adday? Waan xasuustaa jeebkan ayaan geliyey. Dhammaan jeebadihiisu ayuu baaray, waxaase kama uusan helin. Waxaa muuqata inuu waxa uu baarayo ay sarwaalka gudihiisa ku dhaceen. Waxaa kaloo muuqata in dhammaan jeebadihiisu ay dildillaacsan yihiin. Maamulihii markasta oo jeebabkan waxaan geliyo way iga lumaan. Way dhibeen jeebadahan dildillaacsan. Alaab badan ayaa intaan geliyey iga luntay. Waxaan idhi, waxaad raadinayso miyay i khuseeyaan aniga? Maamulihii wuxuu yidhi, wax yar sug, waad arkaye.
si degdeg ah ayuu baladaymooday sidii inuu rabo inuu wax sameeyo. Kadibna waxaan ku idhi, maxaad samayn rabtaa? Maamulihii sub waan keenayay. Hadalkiisa ah inuu wax soo wado been ayaan u haystay, mana rumaysnayn ilaa aan arko waxa uu raadinayo jeebabkiisa oo dhan. Uu ka baaraya sidii uu ina heli karo wax ka maqan. Maamulihii ayaa ku qayliyey, waan helay. Kadibna gacantiisa ayuu soo taagay si uu waxa uu raadinayay ii siiyo. Deetana waxa uu yidhi isaga oo gacanta soo taagaya, waa tabar waxay u kaa dhiibtay gabadh yar. Inta aysan tegin waxayna iga codsatay inaan ku dhiibo. Maamulihii ayaan eegay aniga oo yaaban. Lacagta uu ii soo taagayo waa qadiimi, wasakh ayaa ka muuqata sidii lacag ay ilmo gacanta ku dhigeen, sidii inuu cudur halis ah qabo. Maamuluhu ayaa gacantiisa iska ilaaliyey. Kadibna waxaan ku dhahay, ma doonaysaa? Ma doonayo. Waxaanan ku dhahay, ma doonayo ee iska hayso. Arrintu waxay u eg tahay mid muhiim ah. Maamulaha ayaa sidaa yidhi, maxaa ka wada ayaan ku idhi. Maamuluhu waraaqaha ayaan ula jeedaa. Waxaan ku idhi, maxaad sidaa usu leedahay? Maamulihii ayaa yidhi, gabadh yari dhowr jeer ayay ii soo laabatay oo ay igu adkaysay inaan ku siiyo waraaqaha iyo lacagta 10 riyaal ahba. Markii u dambeysay waxay la socotay gabadh aan u malaynayo inay hooyadeed tahay. 3 jeer markii ay u dhaariyeen inaan xogtan ku siinin ayay iga tageen. Inta hadalka ka dhex galay ayaan ku idhi, ma ii sifayn kartaa siday u ekayd gabadha aad u malaynaysay inay gabadha yar dhashay? Maamulihii ma xasuusan karo muuqaalkeeda oo dhammaystiran iyo tilmaamaheedaba, waayo si hubanti leh uma eegin. Anigu waan garanayaa in maamulaha madbacaddu aad u indhadheer yahay, ishana kama qaado gabadh walba oo agtiisa maraysa. Waxaan isweydiiyey, maadaama uu maamuluhu ahaa shaxaare indhaha gorgorka oo kale leh, sababta aanu gabadha u eegin. Deetana waxaan ku yidhi, aadan aad ugu fiirin gabadha wadatay cunugta yar? Jawaab dhowr ah ayaan ka filayay. Maamulaha ayaa maankayga la hareeyey. Maamulihii way qurux badnayd heer aan kari waayey oo aan ka qajilay inaan wejigeeda eego. Jawaabtuu ii siiyey maamuluhu waxay dhammaanba ka duwan yihiin walcelintii maankayga ka hilqanayay. Gabadhii magaceedu ku dhammaanayay xarafka T. Maamuluhu wuxuu soo eegayaa dhankayga isagoo rabaa inuu waxuun ka garto warqadaha iyo dhambaalada ay gabadhu sida daran ugu dardaarantay. Laakiin maamuluhu ma aanan garanayn sida uu hadalka maankiisa ka guuxaya cod ugu beddeli lahaa si uu jawaab ugu helo weydiimihiisa. Maamuluhu si deggan ayuu ii weydiiyey, waa maxay qisada dhambaaladan? Asalkaba ogow, markaynu qof wax sir ah u sheegayno waxay la mid tahay innagoo qofkaas balooto u hadiyeynay. Waxaan laga yaabaa inuu maalin uun nagu toogto isla rasaastii aynu u hadiyeynay. Sidaa darteed waa inaynu ilmugeed ku eegno dadka aynu u bayaaminayno siraheenna. Maamule, wax qiso ah ma jiraan ee nabadgal. Anigoo weliba sii qancinaya maamulaha ayaan ku idhi, waa uun gabadh rabtaa in loo eego sugaanteeda dilqaafka ah, sidaa darteed kuu fartay inaad ii dhiibto. Hadalkaasi maamulaha kama daadegin, laakiinse waa istaadraaciyey. Madaxa ayuuna ruxay sidii dhaawac wax maagan. Wax fikrad ah maankayga kuma ogi, keliya su'aalahayga ayaan doonayay in layga jawaabo. Waayo gabadha yari yaase ka dambeeyey shaxdan shaydaannimada ah ee ay la ciyaarayso? Yay ahayd gabadhii kale ee tan yar waday? Gabadha qoraalkan samaysay waayo? Su'aashu waxaasba ka muhiimsan waa gabadh yar iyo tan waday iyo qofka isqarinayaba ma hal qofba? Sidee waxaasi macquul ku yihiin? Cajuusadii igu dhex noolayd oo sheekada ku tukubaysa ayaa tiri, iska dhaaf su'aalaha faraha badan, aqri warqadaha lagu dhiibay. Deetana warqadihii aan horay u aqriyay maaha tii ka hoosaysay ayaan akhris ugu dhaqaaqay. Waxaaba ku qoran, waanu kala tegnay, balse sujuudda ayaan alle kuugu baryaa. Alle ayaan dembidhaaf ku weydiinayaa mar kasta. Sadaqada aan masaakiinta siinayo ayaan ku niyeystaa. Markaan gacanta shilinka u saarayo, waxaan ku weydiiyaa masaakiinta inay adiga kuu duceeyaan beddelkii ay aniga ii ducayn lahaayeen. Waxaan eegmada ku dheereeyaa indhaha murugsan ee masaakiinta. Deetana adiga oo indhahooda dhex taagan ayaan ku arkaa. Deetana gacanta ayaad isa soo taagtaa adigoo cod dheer ku leh,
waan ku doonayaa. Ma taqaanaa waa maxay jacayl? Waa inaad juhdi fara badan bixiso si qof aad jeceshahay aad jannada ugu kulantaan. Jacaylku waa in qofka aad jeceshahay aad u ducayso in ka badan inta aad naftaada u ducayso. Ma ogtahay weli inaan ilaaliyo ubaxii gudubnaa ee aad ii keentay markaad ii soo doonanaysay? Ubaxaas aad ii keentay habeen kasta madaxayga ayaan dhigtaa anigoo filaya inaan maqli doono adigoo leh waan ku jeclahay, waxaadna ii tahay wax walba oo qurux badan, waxaad tahay adduunkaygii. Si kastaba ha ahaatee, ma taqaano sababta uu u qalalay ubaxii gaduudnaa. Sababtu waa wadka ayaa noloshiisii ka qaaday. Maya, sidaas ma aha. Ee annaga ayaa kala irdhownay, mana aynaan ishaleelin isa seegan kadib. Alla yaa Rabbi waa iyadii. Maamulihii waa tuma markii ay aamusnaantaydii dheeraatay wax jawaab ahna aanan siinayn ayuu mar labaad isla su'aashii weydiiyey. Yay tahay? Anigoo degdegaya ayaan idhi meel dhow ayaan ka soo laabanayaa waanan ka soo fogaaday maamulihii. Waa gabadhii aan ubaxa u hadiyeeyey ayaan ku celcelinayaa anigoo laamiga gacanta u haadinaya baabuurta tagaasida ah. Waa gabadhii xarafka T uu magaceedu u dambeeyey. Waxaa laga maarmaan ah inay wax uun ka akhrisay qoraalladaydii, gaar ahaan buugga magaalada jacaylka ma degan kuwa caqliga leh. Ugu dambayn gaarigii tagsiga ahaa waan helay. Dawaali ayaana kursiga dambe isaga tuuray. Waxaanan faray inuu huteel aan u tilmaamay i geeyo kaasoo aan deganahay. Waxaad imoodaa shimbir buulkeeda dib ugu laabanaya kadib markay halis la soo kulantay. Intii aan u soconnay hoteelka waxaan ka fikerayay talow gabadha ma la qabaa. Teeda kale ma laga yaabaa inay hooyo u tahay gabadha ay wadato. Si degdeg ah ayaan ugu qaylinayay. Suuragal maaha inay guursato, waayo ballanteennu ma ahayn inay cid kale guursato. Darawalkii gaariga ayaa muraayadda haadka igu aadiyey si uu u arko maadaama aan sare u qaylinayo. Markaasuu yidhi mudane maxaa qaldan? Waxaan ugu warceliyey waxba. Neef dheer ayaan sambabada u diray bal inaan nafiso. Markaasaan ku yidhi wax dhib ah ma jiraan ee socodkaaga wado. Xaaladdaas darawalka tagsigu yaab ayuu ku jiray. Si kadis ah ayaan u arkay isla gabadhii yareyd ee dhambaalada ii dhiibtay oo meel fadhida kor intaan u qayliyay ayaan ku yidhi ma laftirkaagiiba. Iyaduna wax jawaabaysiinin ayay madaxa ruxday iina ishaartay inay isla iyadii tahay. Anigoo af labadii yeeraya ayaan idhi oo ma waxaa horteyda ku sigan isla cunugtii warqadaha ii dhiibtay. Faruuryaha ayay dhaqaajisay, madaxana waa ruxday. Se markan waxaan kala saari lahahay inay ishaarayso haa ama maya. Kursigii ay ku fadhisay ayay la sii jeesatay. Anigoo gaariga tagsiga ah qoorta ka dhiibanaya ayaan ku yidhi gabadhii waraaqaha kuu soo dhiibtay ma hooyadaaba? Ima aysan jawaabin sababtoo ah isla markiiba waa ay qarsoontay. Gaarigii ayaan istaajiyey waanan ka degay. Darawalkii oo yaaban ayaa yidhi mudane maxaa ku helay? Waxaan idhi gabadhii. Darawalkii gabadhii. Markaas ayaan ku yidhi gabadhii yareyd ee hadda halkaa fadhiday anigoo gacanta ku fiiqaya. Halkii ay fadhiday ma arkin miya? Darawalku qofna halkaa ma fadhin, keliya jaam yar ayaan galnay. Waxaan idhi anigoo fajacsan halkaas ayay fadhiday wax yar ka hor. Anigaaba arkayay. Darawalkii oo wejiga cara ka muuqata ayaa iigu yidhi gabar yar iyo tuweyntoona maynan arage intaan soconnay mudane. Kadib wuxuu ii ishaaray inaan gaariga galo. Layrarka gudaha inta wada shiday ayuu yidhi wax aynu aragnay ma jiraan, xitaa hareerahaaga si fiican u eeg. Aniga oo wareersan ayaan dhammaan hareerahayga eegay sidii inaan ahay cunug madax adag oo aan hadal barumaysan wax uu dhaayihiisa ku arka mooye. Markaas ayaan idhi waad iga gar leedahay anigoo soo jeedaa ayaan riyooday ee soco adigoo mahadsan. Waqti dheer ayaannu taagnayn welina darawalkii gaariga ma dhaqaajin. Inta isxanaajiyay ayaan idhi maxaa qaldan maynu soconno. Darawalkii iga raali noqo intaan kadib kuma sii wadi karo. Waxaan rajaynayaa inaad gaarigayga si degdeg ah uga degto. Wixii lacag aan kaa qaatayna waatan i qabso. Codkiisa waa ka kanaa, hadalkiisana xanaaq ayaa ku dheehnaa. Go'aankiisuna wuu caddaa. Isla markaa laftaydu waxa aan qalinka ku duugay inaanan darawalka ku qancin karin inaan qof fiyow oo caafimaad qaba ahay oo garaadkiisa oo dhammaystiran yahay. Gaarigii ayaan ka degay aniga oo af labadii ku leh waxaan hubaa inaan gabadha arkay.